sheeko cariir caruure sheekada aan idiin sheegayo waxaa la yidhaahdaa cali beenaale waa sheeko soo jireena oo looga sheekeeyey wiilkiis cali wuxuu ku dhashay tuulo reerkoodu waxay ahaayeen beeraley iyo xoolo dhaqato xoolaha ay dhaqan jireen waxay u badnaayeen ari iyo ido calina ciidan buu u ahaa da'diisuna waxay aheeday 13 jir maalin maalmaha ka mida ayuu cali caajisay asagoona ka fikirin ayuu cali afka labadii qaylo ku dhuftay waa waraabo dadka tuulada joogay ayaa weyn iyo yar rag iyo dumar qof walba wuxuu gacanta la heli karo ayuu soo qaatay qof waxay soo qaateen waran qaar waxay soo qaateen fallaar iyo qaanso qaar waxay soo qaateen ulbud qaar waxay hayeeshee markay meeshii tageen oo cali ka qeylinayay ayay waxay arkeen xoolihii oo nabad u daaqayo waxay cali weydiiyeen war caliyow aawo waraabihii cali jawaab wuxuu uga dhigay qosol war caliyow adoon nuu qoslin waa kuu soo ciidamano qof walba nolol maalmeedkiisa ku hoolanaaye aawo waraabihii cali wuxuu yidhi waan caajisay wax aan qabtaan garan waayey haddana waxaan helay waxaan ku maadaysto markaasay waxay dhaheen caliyow wax fiican ma aha beenta hadda anaga howl maalmeedkeenaan ku jirnay nin walba shaqadiisuu qabsanaya waana soo lugeysay caliyow beenta ma fiicno dadkii dib bay isaga noqdeen oo waxay guda galeen nolol maalmeedkoodii iyo howlahoodii cali ayaa maalinnimadii xigtay saacadii oo kale ayuu haddana caajisay wuxuu qabtuu garan waayay wuxuu is yiri shalay waa taad ku maadaysatay oo waxaa ku qosashay aad heshee ma sidii oo kale samaysid asagoona ka fikirin ayuu afka labadii qaylo ku dhuftay waa waraabo dadkii tuulada joogay markii ay maqleen qayladhaantii cali ayay waxay gacanta la heli kareen hore usoo dhufteen si ay ugu ciidamiyaan hayeeshee markay meeshii ay yimaadeen ayay waxay arkeen xoolihii oo nabad u daaqaya war meey cali waraabihii aad noogu soo qaylo dhaamisay wuxuu cali jawaab uga dhigay qosol war caliyo maxaad noogu qoslaysaa dad waaweyn baan nahay wuxuu yidhi waan caajisay sidii shalay oo kale waxaan qabtaan kasi waayey haddana hayeeshee hadda waxaan ku maadaysta ayaan helay dadkii waxay yidhaahdeen caliyow beentaadan badan runtaada dambe ayay u baasbeen beentu ma fiicno dadkuna laguma ciyaaro waxaan isugu jirnaa rag iyo dumar dad waayeel ah iyo intaba dadka laguma ciyaara caliyow beentaadan hore ogow caliyow runtaada dambe ayay u baasbeen maalinnimadii saddexaad ayaa saacadii oo kale waxaa xoolihii soo weeraray waraabe cali buu qeyla dhaamiyey hayeeshee qof dhag u dhiga maar ma jirto mar buu ri la tegay mar buu wan la tegay marba mid buu xoolihii dilooday waraabihii cali waa u qeyli dadkana waxay yidhaahdeen waa cali iyo beentiisii sababtoo ah cali been bay ku barteen labadii beri oo lasoo dhaafay cali asagoo ciil cunaha kala go-an yahay oo wato dhowr neef oo dila maqaarkoodii oo asagoo wada dhiiga ayuu tuuladii dib ugu noqday dadku waxay yidhahdeen cali oo wada dhiig baa tahay waxaana wadataa maqaar xoolaad maxaa dhacay wuxuu yidhi waraabaa xoolihii soo weeraray waana idiin qeylo dhaamiyey waadna i dhagaysateen hadda cali oo dhibka jira ayaa wuxuu yahay beentaadii hore ayaa runtaadan dambe u baasbaxday oo waxaa dadka kugu barteen been marka haddaba caruurey waxaad ogaataan qofka beenta lagu barto qof fiican maa oo dadku ma rumeeyaan alla subxaanahu watacaala wuxuu qur-aankiisa noogu sheegay qofka beenta badan inuusan ahayn qof iimaan leh rasuulka allana wuu ka dayriyey dhaqanka soomaaliyeedna waxay yidhaahdaan qofka beenta badan ma fadhiisto meelaha ay dadku ku gartamaan ama markhaati lagama dhigto haddaba ogaada beentu wax fiican maaha hooyo been looma sheego aabba been looma sheego walaalkaa kaa weyn been looma sheego walaashaa kaa yar been looma sheego deriska been looma sheego qof walbo na been looma sheego naftaadana been looma sheego waa anigoo cabdixakiin biyaara caruurey farshaxanka aad u jeedaan waa artiistaha soomaaliya ugu weyn shigshig iyo wiilkiisa sheekh nuur iyo misana artiistihii weynaa oo walaalkii ahaa Cisco Somali Art Film Association
waxa isku jarjaray waa Mo New York Somali Art Film Association waxaana ila daadihinayo Abdifataax Maxamed Abdixakiin Golden Boy iyo Lucky bisada la yiraahdo iyo anigoo Abdixakiin PR oo qoro qaabi bisana soo saaray intaan dib u kulmi doono amaana Allah